kaloo ka mid ah aragtida gooni isu taaga midnimada oo halis ku jirta. waa aragti waa khatar ah. waad ogtihiin waa dhaweyd waxaan galay khatar ah inay dowlado si rasmi ah inta nin Soomaali iska dhaqaaqo inuu qaraf ugu siiyo yiraahdo inta iska qaado halaysan. waa ogtihiin way sahlan tahay in meel kale laga sameeyo, way sahlan tahay in meel kale laga sameeyo, way sahlan tahay in intaasoo meelood laga sameeyo. habkaan u design garaysanahay ee la inoo dejiyay ee xilli inagoo la ina tunjilecsaday la inoo dhigay sidaan u naalo ayaa sidaas ah. marka qaranku wuxuu khatar ugu jiraa in uu kala go'o, wuxuu khatar ugu jiraa in cadow uu qaybo ka mid ah uu qaato. maxaa jira dunida dee mar haddii ay dhammaatay wixii la isku ogaa markii dagaalkii labada adduunku dhammaaday, adduunyadu isdhex jiiday, la kala adkaaday, markii dambena la yidhi warda si loo wada noolaado bal qawaaniin iyo waxuun aan samaysano. waad ogtihiin qawaaniinta gacan kuma jiraan, hadda way ka baxeen. Gaza is good as example. hadda markii la fiiriyo Gaza waa ogtihiin weligaaba soo saar hay-ad dunidan joogta oo integrity leh oo aan qaylo dhaan ka soo yeerin oo aan go-aan ka soo saarin ma jirta. dheg waa loo dhigi waayo. waxaa la yidhi waxaas idinka idin khusaysaa. ninkii xoog le ayaa soconaya, hal xaaqo hala gubo, cid ka hadlaysa ma leh. marka taasi waxay marka kutusinaysaa dalkan aan xuduudihiisu furan yihiin meel waliba nin yar qool la hortaagan yahay. dee malaha waaba laynaga xishooday in la iska qaata mar hore qeyb ka mid ah wayba iska ahayd baan u malaynayaa. marka hawshaasi halis weeye, aragti bay ka rabtaa ee meeshan laga rabaa. waxaa halista oo kale qodobka saddexaad ah waxaa la yidhaahdo nugeylka dowladnimada. dowladnimo hay-adaheena aada u nugul. masalan daahfurnaan la-aan ayaa jirta iyo musuq, oo daciiftinimada iyo tabarxumada hay-adaheenu ay keenayso ayaa jirta. waana tahdiid khatara haddii sidaas hay-aduhu ay u nugul yihiin. waxaa ka mid ah adeega dowladdu ay bixiso aada u liita oo dee aada iska wada garanaysaan, hadday tahay caafimaad, hadday tahay amni, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay wax oo dhan wixii dowladda ay bixin lahayd aada u liitaa. wax yar bay dowladdu bixisaa oo aan waxba gaaraynin. sidaa darteed waxaa laga yaabaa in ka badan 3 milyan oo arday Soomaaliyeed oo waxbarasho gaartay inay ciidda miisanayaan. kuwaasi marka waa qumbulad goor kasta qarxi karta, waa halis bulshada. waxay ku yihiin amniyan, xagga amniga, xagga dhaqaalaha waa khasaare human resource khasaaraya oo halis ah, oo haddii aan loo helin xal meel u socdo aan la garanayn. dhalinyarada jaamacaduhu ay soo saarayaan hadda oo boqolaalka ah, oo haddii aysan shaqo helin ayaguna dhinac kale u bayri kara ama tahriibi kara ama niyad jab ku dhici kara oo meel kale aadi kara. taasna waa adeega oo inaga liita. waxaa keenaya hay-adaheena iyo sidaan u naallo. marka waa halis. waxaynu u baahannahay inaan soo kabano si deg dega. isku filaansho la-aanta xagga amniga iyo xagga difaaca waan isku filayn, oo layna waardeynayo, oo laynala joogo, oo aan isku filaan la-nahay, iyaduna waa qeyb kale oo halis ah waaye. kobac yarida dhaqaalaha oo aada u yar, inuu dhaqaaluhu kobciisa oo aada u hooseeya ayaa ka mid ah. xaaladda xuquuqda aadanaha iyo sareynta sharciga oo ayadana sidii la go-aan ahayn oo liidata ayaa ka mid ah. waxaa ka mid ah baahsanaanta hubka sharci darrada ah ee ku jira gacanta dadweynaha Soomaaliyeed ayaa ka mid ah.
intaasoo dhan waxaa la isku yidhahdaa nugeylka dowladnimada ayaa la isku dhahaa, waxaana keenaysa dowladda oo nugul, hay-adaheeda oo daciifa ayaa keenaya. qodobka afraad oo ina haysta waxaa waaye xuduudaha dalkeena oo baylaha wax kasta isku soo gelayo, hadday tahay argagixiso iyo balaayo qaraxyo wadata, hadday tahay drag, wax walbaba inay tahay mustabax la iska soo galo, la iskaga baxo, si la rabo la yeelo. marka waa qeyb weyn oo dhibaato weyn inaga haysato waaye, oo xuduuduhuna waa baylaha. waxaa dhibaato weyn inagu haya oo threat ah aada u weyn isbeddelka cimilada, oo ayadana dhib weyn aada ogtihiin inaynagu hayso. aan u dhaxayno innaga dhan waxaan u dhaxaynaa daadad iyo abaaro ayaan u dhaxaynaa. marka infrastructure-kii yaryaraa oo kolkii horeba aan micnaha badnan lahayn oo baaba-ay, iska eber noqday, wax soo saarkii oo ku saamoobay, oo aan aada iyo aad dadkii ay food insecurity u dhacay, ay ogtihiin dadkeena dhibaatada haysatay. dadkii xataa wax beeran jiray oo usoo hayaamay magaalooyinkii iyo beerihii oo laga soo tegay, xoolihii oo laga soo tegay, aas-aaskii dhaqaalaha dalka oo deedna meeshaas ay kasoo gaaray burbur weyn uu kasoo gaaray. waa dhibaato in haysata ayay ka mid tahay runtii. khatarta bulshada waxaa ku dhacay waxaa loo yaqaano haybguurka afka, dhaqanka iyo suugaanta, fanka iyo sooyaalka soomaaliyeed oo ayadana dhaqan guur xun uu ku dhacay, ood ogtihiin. waa haybguur, dhaqan guur, hidda guur, waxaasoo dhan